gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Axmed Cali Muuse iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta soo gaaray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaana garoonka diyaaradaha degmada ku soo dhaweeyay maamulka degmada gudoomiyaha maxkamadda degmada Baraawe saraakiisha amniga odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka safarka ugu yimid magaalada Baraawe ayaa ah kuurgalida xaaladaha garsoorka degmada iyo kormeer guud uu ku sameyn doono degmada Baraawe ugu horeyn ayaa waxaa soo dhaweynta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo xildhibaane soo dhawaada deegaankiina ku soo dhawaada waa sida la idin jecel yahay dadka halka isugu yimid inay idin soo dhaweeyaan waxa idin leeyahay soo dhawaada insha Allah soo dhawaada mudane gudoomiye maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed soo dhawaada markaa horeysa Baraawe waatana kulay maanta koob uma saamaleynay waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah si kale laaba degmada waa rabnaa inta joogtid oo ilaahay alf kaaga dhig aad joogtid إن تعالى أفضل إن شاء الله ما دعوت فشوارنا. سودوين تان قروح بدن يا حفلة تان قروح بدن أو ما أنت لو سودوين هاي قدومية محكمة السرع قدومية أحمد علي موسى ما شاء الله حنقولنا هاي قدومية محكمة دقمة برابة مختار أبو النور أيا دنكيسا سودوين تا كهالي. halka maanta waxa u joognaa munaasabad soo dhaweynta gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye waxaan ku leenahay kusoo dhawow degmadaada kusoo dhawow deegaankaaga kusoo dhawow marti kama tihid waa deegaankaaga waa kusoo dhaweynaynaa insha allahu gudoomiyaha maamulka degmada Baraawe Cumar Cabdullaahi Maxamed oo goobtan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha Axmed Cali Muuse gudoomiye soo dhawow magaalada joogta runtii janibka aad kaga beegan tahay dowladnimada ama adiga aad ugu aadan halkan aad baa loogu baahan yahay guud ahaan Soomaaliya oo dhan meesha ay leedahay in laga hagaajiyo u baahan waa janibka aad joogtid oo ah garsoorka iyo gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed gaar ahaan Baraawe maadaama aad noo timid kulli insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa howlo badan oo yaala kiisas badan oo hawshaada oo yaala halkan in aad insha Allah tacaala wixii marka hawshooda macquulta damay doontid arrinka cadaaladana aad loogu bakaa Soomaaliya oo dhan marka fiirisid insha Allah tacaala gudoomiye Allah kula garab galo xilka culus aad u haysid dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka halkan soo dhaweyn in weeyaa hadii la yiraahdo gudoomiye ku soo dhaweynana xildhibaan diinki oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa bulshada kaga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen qeybaha bulshada oo dhan ay ka wada fahamsiin ay ka wada shaqeeyeen marka sidaas darteed dhamaantiin waan idin mahadcelinayaa maanta waxaan marqaati ka ahay maaragtay sidaad maaragtay aad soo dhaweyseen gudoomiyaha maaragtay maxkamadda sare waa hay'adda ugu sareysa ee garsoorka uu maanta booqasho ku yimid taas maaragtay waxa waaye idan maana wax ay farax gelinayso waaye sida idinka aad soo dhaweyseen insha Allah taala wixii waajibaad ah oo maaragtay asii markaas u socdana waa gudinayaa waxaan kale maaragtay leeyahay reer Baraawe waxa waaye waan ku faraxsanahay sida qalbiga wanaagsan sida maaragtay hadar la'aanta ah sidaas iyo si leeg baad u soo dhaweysaan hal mar ma aha laba mar ma aha waa wax adinka aad maaragtay aad ku sifeeyeen oo ku caan baxdeen marka sidaas darteed waxaan idin rajaynaynaa maaragtay wanaag badan iyo khayr badan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Axmed Cali Muuse ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay degmada isagoona ka warbixiyay ujeedka safarka maanta uu ku soo gaaray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaan u imaanay shaqo sida caado ay tahayba Koonfur Galbeed garsoorkeeda marba garsoorkiisa marba meel oo ka jira marba meel in la aado meel waliba shaqada ka socota la kontaroolo la kormeero habsan u socodkeeda waxyaalaha khaldan waxyaalaha saxan wixii saxan aan dhiirigelino wixii khaldanna aan wax ka qabano waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay taladii iyo cabashadii ay soo jeedisay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka haweenka waana wax sax ah
in degmada oo caasimadda koonfur galbeed in la helo garsoor dhammaystiran maxkamadii degmada dhisan in maxkamad gobol la helaa maxkamad rafcaan la helaa waa wax waajib ah oona sax ah mudanna in meel waliba laga sheego waxyaalaha u imaana kow ka tahay sida degmadan ku heli lahayd garsoor dhammaystiran waxaana diyaar u nahay inaan si gaara isku aragno cabashooyinkiina aan dhegaysano wixii guulo jirana aan ka wada hadalno wixii cabasho jirana aan si gaara u aragno insha allahu tacaala diyaara u nahay mar labaad iyo mar saddexaadna waan ku faraxsanahay soo dhoweyntiina aad iyo aad aa u mahadsantihiin